saraakiil ka socday hay'adda gargaar oo maalmihii ugu dambeeyay deeqa ka qaybinayay deegaano hoos yimaada gobolka Nisool ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood waxaana mas'uuliyiintani garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood ku soo dhaweeyay la taliyaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Maxamuud Cali Xaaji Jeen Yare waxayna mas'uuliyiintani intaasi kadib ay safar ku gaareen deegaanka dhiiri gobolka Sool halkaas ay degan yihiin dadkii ay xooluhu ka dhameysay abaartu isla markaasna waxay halkaas ugu qaybiyeen deeqo isugu jira raashin iyo biyo waxaana ka faa'iideystay qaybinta raashinka iyo biyahani dadweynaha aad u tiro badan kuwaas oo dhibaataysanaa isla markaasna ay saameysay abaarta baaxadda weyn ee ka jirtay guud ahaan deegaanada hoos deeq biyo caadi ahayn baa waxaanu gaarsiinay degmada Dhirgoobo oo ka tirsan degmada Arcadeeye delegation balaaran baan nahay deeqda wax beeyay hay'adda gargaar tayurad bay maalintii hore Laascaanood ku yimaadeen waa hay'adii ugu caalamsanayd inta abaartu dhacday gurmadka samaysay gobolka Sool mar walba mas'uuliyiinteedii tayurad ku imaanayso ee rolatay dadka tabaalaysan ilaahay waxaan ka baryaa maanta hay'adda gargaar anoo kaashanaysa hay'adda aan wada shaqeynay development waxaan mar labaad aan ka fulinay barnaamij aanu raashin macluumaad degdeg ku soo gaarsiinay dadka deegaankan Dhirgoobo ee ka tirsan gobolka Sool kaasoo aan waxay balka rajaynaynaa ahayn kii ugu dambeeyay kii ugu horeeyay gobolkan ka sameynaa ahayn waxa waaye abaartiyadoo dhammaan waxay balka Soomaaliland aad u saameysay haddana waxaynu ognahay inuu ka warhaynaa dhammaanteen in gobolada bariga si gaar ah u saameysay gobolka Sool waxay balkii siiba oo ku caan baxay xoolaha nool kuwaasoo ahaa lafdhabarta dhaqaalaha gobolkan waxaa daayacad ahayn 80% xoolihii noolaa ay abaartan iyo kuwii ku horey ku baxeen taasi waxay ka turjumaysaa maxay balkii khasaare weyn oo soo gaadhay gobolka waayo 70% populationka ee gobolku waxa maxay balkii dhaqaalahoodu uu ku beys gareysnaa xoolaha nool marka 80% xoolihiina baxeen oo arkaysid maanta maxay balkii dad bankarayno arkayno maanta wakaasoo banki uu abaaran yahay doog wali male daaq male xoolihiina way taagan yihiin waxaan anagoo ururka hay'adda gargaar ee wadaniga waxaan doonaynaa inaan u mahadnaqno maamulka iyo mas'uuliyiinta gobolka Sool oo nagala shaqeeyay ciidanka iyo askarta iyo saraakiisha ciidanka qaranka waxaan maanta inaanu dadkaas abaartu aad u saameyso dadka ay sida ugu sii xun u saameysay dalkeena inaanu caawino oo wax soo gaarsiino ayaanu ku faraxsanahay inaanu insha Allahna wax badan oo kale gobolka loo qabto oo gobolka loo soo jeesado gobolka xiriirkiisa iyo caawinimadiisa sida dalka kale aynu u soo gaarno bariga Samiir Saciid Bila Bulsha TV